عليكم السلام. kusoo dhow Soomaali Waddan TV waxaad rabaa bal halkaad joogto iyo magacaada iyo sababta aad noola soo xiriirtay insha Allah. اوكي وليني مقعي waxaa la yiraahdaa Maad Axmed Maxamed Faarax oo ku magac dheer Maad Sheekh Maxamed niina waxaan ku soo wacay sababta wiil laga maqan oo walaalkeeya oo ilaa ay muddo laga maqan oo baayar ahaa jira ku yahay magaciisa la yiraahdo Cawil biisto isku abaabanahay Sheekh Maxamed oo isna Xaliimo وكاس wiilkaas goormo kale wiilkaas marka 86 aan ugu dambeysay si fiican ugu celi meesha sartu waxaan rabaa markuu horeysa adoo ma sarta xagee joogtaa aniga waxaan joogaa South Africa joogta marka waxaan rabaa wiilkan in ka lumay oo aad raadinayso waxa uu tiri goormo ma wiil lumaya mas waa wiil bal waxaad noo sharaxdaa sida wax u dhaceen maadaama wiilka isku aabaa ma macnaha wiilka isku aabaan ahayn kala hooyaan ahayn kulay xaalad Soomaaliyeed oo ka warqabtaan deyn kulay labada xaas oo shaqo qabo oo weesiina la kala macnaha kuma markiisna marka aniga wuxuu ku firo dhacay kadib maamadii iyo cunugii goonihiisa isku go'een ma fahanti waa gartay marka sanadkee waa wiilkaas goormo dhashay tiri sanadkee uu dhashay 86 kii dhashay 86 marka hooyo aaba markii xaaladoodii kala macnaha kala tageen kala fogeeyay anagana waxa u soo guurnay Madiino walwadaaga wada tageleen anagana Madiino loo soo raray anigii hooyadii iyo ciyaalkii walaalihii ahaa wiilka Cawil iyo hooyadiisa Xaliimo la yiraahdo qabilka ay tahay nin oo duula ku roo habar kidir shareebaan asbuurka loo ogaadeen saasay meesha ugu hareen anagana waxaan ku soo harnay Madiino miinda ku soo kordhay ayaan xaqii deganaayeen saddex sano miyaa kadib qaxaya dhacay waa la soo kala yaacay kaadi macnaha hadda waxaad leedahay wiilkaas wuxuu dhashay 1986 sagaashankii markii dagaalada dhacayna waa wiil adigu 5 jir ah ama 4 jir ah ayuu ahaa laba qoysad laba family ahaydeen hooyadiis oo dahab oo la yiraahdo Xaliimo ayo Xaliimo wax lagu daro mataqaan oo habar gidira oo Saleemaan ayaa marka hooyadiis ahayd wiilkii iyo hooyadii sidii iskula hooyadiisna gooni u koreen sidii iskula maqayin marka هادية بس يسولف مقيهين. أوكي حقيقة مرك حافظ دجناين حلقة أيقو دجناين مرك دجالات دعاين. حلقة سألوجا أول كلا جورا أو دجالات دعاين أيقو الوداع دجناين أنا كنا مدينة دجنين لكن يوم أنا في كما هارينا دور مرة نحوجا بالحن يدت ورستي وعلى يقولش حافظ إيش كان حافظه لك أتلمام مرك هلاك نعاو هلاو آدو وانتهي. لكن هو الوداع اوكي هويديس waxay ka shaqeynaysaa degmada howladaaya ka shaqeynaysaa degmada howladaaya beena degmada ka shaqeynaayo qaadi ka aha beesha iska okay degmada u kaadi marka xilliga aad sheegayso gudoomiyaha dhalinyarada ciidanka guuliyaasha ama degmada waxa ka shaqeyn jiray la dhihi jiray afdheere oo asan Saleemaan ah waxaan rajaynayaa in insha Allah beesha Saleemaan ay maqli doonaan oo heli doonaan marka hooyadu waxay ahayd Saleemaan meesha ka shaqeynaysay degmada ka shaqeynaysay marka ayadii iyo wiilkii waa isla maqayeen marka kadib xagaad warka ugu dambeysay xagee warka ugu dambeeyay ay ku dambeeyay wiilkaas iyo hooyadiis anoo markii ugu dambeysay oo kulli aan kama warqabo laakiin waxay ugu soo gaartay xaafadda cusub ee la yiraahdo Dar es Salaam agteeda iyo isheeg wardhignay dhinacaas ilaa u guureen oo dhinacaas ay joogeen ee deganaayeen oo xeer noocaas u soo gaaray wiil Cawil la yiraahdo meeshaas dhalinyaro ka tilmaantay oo la dhigi jiray kulli ma ku raadaan wiilkaas oo ogaadeen qaar ay jireen waa macnaha babalahano maadaama uu hooyis la soo koray oo markii aduulay ku xal dhacay u soo gaarto ruuxaas u jira la shaacir walaalkii waay inuu maamada iyo wiilka labadaba raadinaya inuu reebti laanio ana helo waa gartay laakiin fiir adiku bahdii meeqa ahaydeen loo saddex bahaayeen marka hadday kugu dhalatay bahdi ugu weyn bahdi ku xigto anaga aha iyo bahdan dabo wiilkaana okay marka adiku marka intaas xilligaas waqti ka dambeys wax carruurtaas wax kamid oo dalka joogay oo wiilka raadi ma jiraan mise adaa u horeysaba qof hadda baad goobayso raadinaysa
ولا كلا تجي أنا قالوا حسوا دلعاني كيني إلا ساوث أفريقيا بهذه كانوا يقولوا ويليدوا سور هذه اللي هذول نقولوا ويليد أنواع بيرا مثل سوق حي واللي يراها طريقة ضد محكور هذا ضد يقولوا ويناي ومركز جور كجاري اللي هذه أنا أيضا وحقوق حال إيش جبوتي لوكاس مركوح باش يجونون هنا بورادي أدير كي أجري أدير كي لني دور الله سو حمر جواهر نيو بالمات ninka wiilka ii raadisay wada dabashu dhawaad walaalka dhalay aniga walaalkii walaalaha suuqinaha inuu asaga uu baxanuunsan sokora ku dhacday Ethiopia balgi dhakhtarkiisa loo geeyay soo celin marka adika beesha ka soo jeed u kaad marka adiga beesha u dhalatay beesha ka soo jeed yaa marka waa dagaal yaa beesha adiga ka soo jeed aniga beesha ka soo jeedo ogaadeen reer Cabdulla marka qaxi waqtiga la qaxay un baa idin kala qaxiyay wiilka waa ka wareyseen dirisa waa hoodaa isla wada ganadeen والله ما يعني المدينة تقريبا سمعها وتكلا وخلا غور خبني ده مركي حالة العباطة الهيشيو والدي تسكيل وهذا إنه ويلك أنا خلاص إلى شيء إنه وقنا لها ها مرك هذا مركي وكان عرضي واقف مرك هذا هديك ومقليس الذهب ونوش هاي أما ويلك ولاكها ونولي هاي وحال هذا وحال هذا ها حليمو وحال هذا هاي ونول هاي قويسك ماشي كل الجوجان أضو شرح وحي رطة طابنا أنت ميلود كل الجوجتين inta qofood tihiin adiga oo taataabana in ku dhageystaan suuragal ah insha Allah waana kula soo xiriir doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan hadii aad tilmaanaysid cidda qoyska meelaha ay kala joogaan adeer waxa tiri Ethiopia jooga caruurta ku dhalatay xaqii kala jooga Djibouti joogan gabadhi walaashay ahayd iyo walaalkay iyo walaashay kala ku Djibouti xaq lahaasay guureen kuwa kala aniga isku baadayna dibadda jiraan Ingiriiska iyo waxay kala jiraan iyo sheeg Turkiga hadda uu ka soo guuray hadda London Ingiriis ku soo guuray isla gabadha ay joogtaa Holland iyo gabadha kale iga yareen marka reerii dibad alle ka joogo South Africa kuwi aan Soomaaliya xagga jiraan kuwi kale baada kala ahayn waxay jiraan Djibouti waa ka soo walaal marka baada weyn ma qofoodo baada weyn ma qofood waa wiil laba gabdhood adikina baadin dhaxda waa meeqatiin anaga wiil iyo maxaan ku wiil laba gabdhood ما شاء الله مركب قوس بلارناتين إن شاء الله سيكونوا إن شاء الله وحنرجعنا إلى دونو لها أركض دونتان هدي هذا وصلنا ولينا هذا حرب حنتي هلي دونتان إن شاء الله لكن إن هذا وانا سنة تانين وراكي سهدنا بعد قبتين هيد وان وحفي عن وكمان علنا إن شاء الله هدي له صوع ما لجالس حرير كرا تلفن لجالس حريره بشاشة عن كوسار ما يسا وهاي 073 516 14 59 تاسع مرة بقول إيه أو وصل فيه واستعمالها. الله عسوا ما صرت مرة بعد مقعي سدحم كعلي مقعد سدحم هذا ما حصل. ويعني المهد أحمد محمد فارح. ويمكن عول أحمد محمد فارح. الهوديس لحليمه. إن شاء الله وحنرجعنا إن فرنت هذا قارد دون تصير وراسها بدنا الجلوس حر دون هديها كل تبع وحنرجعنا أنا أقول برهره ذاك يباش سليمان أرنتاسي ما دام أتلمان في عم بحسي إيو ماشي كشقيني سبي دقمة بإني كالنا جواد قاعد دور أرنتان سيد دكسيها بدن ما دام كتالك وكتها دور سنضاد وقاد قلبي قاعد عنق قاعد يسولالك إذا شجرب كذا هالشو أضو بانته هذا كاجم هالعلنا وحنرجعنا إن شاء الله بعد هذا هالدون هذا ما صنته الدور بانت سومال ودن تي في وده كحيران دمانتين وحنا ذكاء سنة إن أرنتان سكحل صار دونتان ونكا ولكيس أو مدو أفرت السنة كله كم قنطة كم قينها ولكيس أنا لقرب قلنا إذا العدة كقاب قاعدة كرتا وحين كيرس إن شاء الله وفأجري كيرس وحنا وانا سندتك كلام قن هدي عن سوق الجرمان أو قبيل قبيل أنا واديك صرنا وانا سن أنا عذر سهل عن كل دون وحرجنا إن شاء الله غيره لكن أنت تسكحل صورة دون تن يبش السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيد على عدي وربحنا هيسام لبعض التلفون أو هالك صور ويل كتلفون كيسة يسمار ودن تي في لبعض ولا سحري كتوان ما سنت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.